بسم الله. dhammaan waxaan leeyahay shacabka dadweynaha kilibkan daawanaya ama arki doona waxaan leeyahay waa idin salaamayaa salaan ka bacdi. magacaygu waa Cismaan Khayrre weeye. waxa aan doonaya galabta inaan halkan kasoo gudbiyo oo aan uga soo gudbino dadka degan gobolka Buuhoodle iyo Sool iyo Sanaag SSC loo yaqaano jaaliyadaha dibadda iyo ta gudahaba waxaan doonaynay inaan halkan arrin yar uga soo gudbino galabta haddii Ilaahay ka dhigo. saddex qodob baan u kala qaadaynaa. qodobka koowaad waxa weeye tegistii Galaydh iyo Somaliland iyo waxyeeladii uu u geystay 4 sano ee u dambeysay dalka iyo dadka uu u geystay. qodobka labaadna waxa weeye in maanta loo baahan yahay in si degdega la isugu yimaado oo shir degdega loo qabto. qodobka saddexaad oo ah baryaha kan dad sawirro la wareegayay iyo kilibyo yaryar iyo fiidiyooyo oo qoladii khaatimada ahayd ee Galaydh la socotay iyo wixii ka hadhay hadda intii raacday ma intii ka hadhay meelahaana wax ku qorqorayay oo aan iyagana doonayna inaan kelmad nidhaahno. haddaan qoladan ku hormaro meelaha wax ku qorqoraysay sawirro iyo kilibyo yaryar oo anigu aan leeyahay Cismaan Khayrre ahaan meelaha wareejinaysay qaar ka mid ay yidhaahdeen aan la sawirraa ninka la yidhahdo Cismaan Ciise xagla toosiyey wasiirka caafimaadka ee Somaliland. baan doonaya in kelmad aan ka idhaahdo. waxa la yaab leh in la yidhaahdo ninka saaxdheer iyo kala baydh reer saaxdheer iyo reer kala baydh ah ee Somaliland ka shaqeeya ama baarlamaanka ah ama wasaaradaha ka shaqeeya ama si kaleba u jooga inuu iman karo saaxdheer iyo kala baydh garaadka reer saaxdheer inay u iman karaan salaadiin iyo dad kale oo Somaliland ka socda oo ay la shiri karaan. dadka reer Buuhoodle iyo reer Xudun iyo reer Taleexna lagu yidhaahdo waxa laale wixii Buuhoodle iyo Xudun iyo Taleex ka soo jeeday ee Somaliland taga ama xilka haya lama shiri kartaan. taasaa la yaab leh. waxaan idin xasuusinayaa berdhigood ninka la yidhaahdo nin MP ah oo ka yimi oo baarlamaanka ka shaqeeya Somaliland oo yimid oo ninka la yidhahdo Dhunkaal. waxaad ogeedeen nin kale oo kuwii khaatimada ahaa oo Cali Khaliif la socday oo isaguna baarlamaanka sheeganayay inuu kula shiray meesha la yidhaahdo isagoo Buuhoodle jooga uu aaday meesha la yidhahdo saaxdheer iyo kala baydh. markii la weydiiyeyna uu yidhi danta reerkaa ka weyn khaatimo iyo Somaliland labadaba. garaadka reer saaxdheer waxaan ognahay inuu kula shiray niman isma ah oo salaadiina oo beesha isaaqa saaxdheer. waxaad ogtihiin oo idin xasuusinaya shirkii coodanle ee garaadada reer Buuhoodle garaad Cabdirasaaq iyo garaad Saleebaan Buraale iyo Suldaan Siciid iyo Cuqaasha iyo loo dhammaan loo kala hadhin in ay ka hor yimaadeen Cali Khaliif iyo garaadkiisu oo ay cambaareeyeen iyaguna markay doonaan ay la shiraan markay doonaan ay aadaan. dadka loo diido kale in dadka loo diido kale oo la yidhaahdo ninka halkaa idinka jooga lama hadli kartaan ama isma arki kartaan. haddii hore loo qaatay horta dib loo qaadan maayo. Saleebaan xagla toosiye annaga kusoo dhaweynay magaalada Birmingham aniga ayaan idinla hadlaya Cismaan Khayrre isaga iyo waftigii la socdayba hadday Muuse Biixi tahay iyo hadday odayaashii kala tahayba. sababtaan u soo dhaweynayna isu garab taagnayna waxay ahayd dee Saleebaan baa marayay. Saleebaan waa nin reer Buuhoodle isaga ayaanu garab iyo soo dhaweyn labadaba siinaynay cidna uga gaban mayno. waxaan kaloo idiin sheegaynaa shirkii coodanle ee aanu qabanay ismada iyo dadka deegaanku ay qabteen isaguna halkiibuu kasii socon doonaa cidna looga gaban maayo iyo kuwa lamidka ahba. cid meelaha wax ku qorqortay iyo websiteya gelisay oo aan waxaa ka aqbalayno ama ka yeelayno haddaanu nahay dadka aan imika kor ku sheegay ama reer Buuhoodle ha noqdeen ama kuwa kale ee deegaanada kale dee Xudun iyo reer Taleexba ha noqdeen ee loo diiday la yidhahdo arkina dadkiina
adeer dib u dhici mayso hadday hore u dhacday taa marka waxaan intaa raacinaya nin kale anigu unbaa cid arki kara oo dadka la shiri karo danahayga kala shiri kara cid dadka kalena danahooda cid kama arki karaan ee saaxdheer jooga iyo kala baydh ee raba magaalooyin kale inuu ka taliyo waxaan is idhaahdaa ninkaasi maxaa kasi ah adeer waxbaa kaasiya dib isugu noqo inta waxa aad tahay iyo awooddaadu inta ay tahayna dee ilaahay ha ku garansiyaanu ku leenaa anna waxba ka odhan mayna dadkaaga dhinac ka raac waxaan taa raacinayaa ina Galaydh ka teg carra dhulbaahante ka teg meeshii uu u socday 40 sano u socday ee ilaa iyo berigii uu garaad cabdiqani iyo waftigiisii geeyey meesha la bali gubadle uu berbera kaga qayb galay boorame burco ayuu horta aaday waxaase Somaliland u sheegayaa iyo dhulbaahantaba ina Galaydh inaanu cidna wakiil ka ahayn reer buu hoodlana aanu mas-uul ka ahayn reer buu hoodle iyo hadda deegaankii uu ka tagayna waxaan ku boorinaya oo aan ku adkaynaya oo ciidamada sharafta leh ee buu hoodle militariga aan u sheegaya inaanu ina Galaydh hadduu xitaa isku dayo inuu soo noqdo oo buu hoodle iyo carra dhulbaahante ku soo noqdo in laga hortago inaanu soo noqon Somaliland waxaan u sheegayaa ninka la yidhaha Cali Khaliif Galaydh professorku sidii aad gaarka ah idinku isaga ula dhil garanaysaan isaga idinka idin jirtaa laakiin waxaanu idiin sheegaynaa inaanu cid allaale cid wakiil ka yahay hadday buu hoodle tahay iyo hadday xudun tahay iyo hadday reer talax tahay iyo hadday laascaano tahay iyo hadday sool iyo sanaagba tahay iyo cayn cid uu wakiil ka yahay ma jirto wuxuu wakiil ka yahay saaxdheer iyo kala baydh kala xaajooda saaxdheer iyo kala baydh taana waxaa leeyahay Somaliland waxaan kaloo u sheegayaa Somaliland iyo ismaamulka Ethiopia dowlad goboleedka ismaamulka kilinka ee Ethiopia iyo Puntland iyo dowladda federaalka ah ninkaasi 4 sano ee la soo dhaafay wuxuu nabadgelyo darro ka waday dalka gobolada SSC dagaal ka riday dhibaato ka waday khalkhala siyaasadeed mujtamaca Soomaaliyeed ee halka degan ee dhibaatooyinka iyo dowlad la'aanta iyo abaaruhu aafeeyeen ayuu ka dhex waday markiisii horena dambiile dee Soomaaliyeed oo raggii wax lagu tirinayay markuu wasiirka ahaa iyo markuu ra'iisul wasaaraha ka noqday dowladda cartab ayuu ahaa waxaan leeyahay aan iska kaashado ninka dambiilaha sidii loo soo qaban lahaa maxkamad loo keeni lahaa taas ayaan halkaa iyadana kaga hadhaya dadka shacab weynaha dhulbaahante ee SSC waxaan leeyahay sidii ay kulley ay xtag ee la reeb ninkii horta tagi dhibaato badan oo tafarruq ah oo khilaaf ah oo dadka uu dhexgeliyay waa jirtaa waana la ogyahay haddii aanu nahay qurba joogta jaaliyadda gobolada ka soo jeeda waxaanu leenahay tashada tala mugla tashada dantiina ka tashada wax allaale wixii idinku isla garataan mariya si allaale sidii idinku isla garataan oo dantiina ku jirto ha loo tashado hana ma garanaysaa haddii ilaahay ka dhigo ha la raaco oo talo mugla waa ku tashateen oo aad raacdaan oo aad isku luga duwataan oo aad dantiina deegaankiina iyo ta mustaqbalkaba aad ka tashateen yeesha dabadeedna waxaa isku raacdeen oo cad oo isla ogolaateen meel allaale iyo meeshii aad doontaan kaga howlgala wabilaahi tawfiiq waa Cismaan Khayrre waxaan galabta wakiil ka ahaa dhammaan jaaliyadda warba joogta ah ee nadiifta ah ee gobolada SSC ka soo jeeda aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh